madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxay soo kormeereen qaar ka mid ah degmooyinka iyo tuulooyinka gobolada Jarar iyo Faafan ee deegaanka Soomaalida Itoobiya sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Axmed Kaabe. wafdiga aadka u ballaaran horkacaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar looguna magacdaray biyo nabad ayaa lagu soo maray gobolada Jarar iyo gobolka Faafan waxaana madaxweynaha socdaalkiisa uu ku soo maray santarka Bullaale waxaana uu kuurgalay xaaladda dadka xoolo-dhaqatada ah ee ku dhaqan santarka hodan ku ah xagga xoolaha nool ee Bullaale waxaana madaxweynuhu kala xaajooday in sidii loogu talagalay ee talaalka xoolaha iyo daaweyntooda ay u helaan bulshada xoolo-dhaqatada ay ku dhaqan santarka Bullaale waxaana kulankaas u dhacay sida tan سؤال يودينا حوين سنتر كي دولة حولها هي تيم كي دولة حولها حوالي مين دويين ومن سوق يعني في عم بين لوجود دويين ولي بحال مرة ما فريستان ويسوق على اسمها ثم ويتقين هاد يا دور سفي عن إلا هير كل اللي صادر إلا هير قبل وين ردقين ويتشوقان أنا قون إلهي مويا آدم هو تعبدين بيقولي بس أدق وحوليه يا حوله ودويين نفل بحريس وقطعان أنا أين حرد وقطر قلنا بتشيرو تلالكي وبهاش معاك ولا دو مقارتي أقصدي محاك ولا فيتامين كي ما له بيتشاهي معلكين ما شاء الله بيتشاهي نفكك ما شاء الله نفك إسرك بوقت كل حتى كدويين سووا مروسي هير سلام مركب وضع waxaan marka taana ku sii laba mahadinaynaa iyo gobolka iyo degmadana soo gaarsiiyay inta kadib ayaa loo kacay degmada Gunagado oo ka tirsan gobolka Jarar waxaana wafdi horkacaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar ay ku gaareen degmada Gunagado waxaana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar oo xarig ka jaray mashruuc biyo gelin ah oo ay ku baxday lacag ka badan 19 milyan oo bir waxaana madaxweynuhu oo qaybaha bulshada ay ku dhaqan degmada Gunagado oo kala hadlay in sidii loogu talagalay ay uga faa'iideystaan biyahan qaar ka mid ah qaybaha bulshada ay ku dhaqan degmada Gunagado ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan shalay iyo maanta oo xilliidii hore ay bulshada ku dhaqan degmada Gunagado ay qabeen oon aad u farbadan inta kadib ayaa waxa kale madaxweynuhu xariga oo ka jaray mashruuca baka birqod iyo goomar ay ku baxday lacag gaaraysa 64 milyan oo bir waxa kale madaxweynuhu xariga oo ka jaray mashruuca biyo gelinta ee goomar waxaana madaxweynuhu ka warbixiyay mashruucan إن هذا تيني كلام مويه وحوالي 5 كيلومتر بصعنايا توس مركو يشاني 2 كيلومتر وروريقة إلا 4 كيلومتر بيسكون قبل كلا يسكسي درا أنت أنا بيا كوتشي وقصبات الكويس سلاقضي ولا قلي بيا هذا وبيا سفر سوق على وتقرأ كنيسان بيا سفر سوق على أو حوالي أنت سوى سعوديين ميزانية يوهانتي بالو كاني مركا إني يعني مركو راد قدوتان مشروعا waxaana qaybaha bulshadu ay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan mashruucan biyo gelinta ay heleen waxaana socdaalka loogu magacdaray biyo nabad ee madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo wafdigiisu ay ku marayaan ayaa waxay ku hakadeen tuulooyinka ay sii marayeen halkaas ay ku kurgaliyeen xaaladda dadka xoolo-dhaqatada ay ku dhaqan goobahaas sida ay tahay xilligan uu madaxweynuhu socdaalkan ku marayo oo ay tahay xilli ay curteen roobabkii guga isla markaana si fiican uga da'een goobahaas dhulkuna ahaa mid aad barwaaqo ah biyaha xareed ahna ay jiifeen baliyada iyo wadooyinka hareerahooda inta kadib ayaa hoolka shirarka ee ku yaala xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur waxa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo shir kula yeeshay qaybaha bulshada ay ka kooban tahay isagoo madaxweynuhu kala hadlay horumarka iyo maamulka suuban ee waddo xukuumadda iyo doorka looga fadhiyo in qaybaha bulshada ay qaataan waxa kale oo madaxweynuhu ku booriyay in laga faa'iideysto nidaamka dajinta ee dadka xoolo-dhaqatada looga dhigayo xoolo-dhaqato beerley maadaama xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay tahay mid u taagan ka jawaabidda baahida bulshada
ee dhanka horumarka intaa kadib ayaa socdaalka loogu magac daray biyo iyo nabad uu horkacayo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxay soo mareen wadada laamiga ah waxaana ay soo mareen santarada kala ah Heegleley Obole magaalada Caraarso iyo santarka magaalo Cad waxaana ay madaxweynaha yofdigiisu ay soo mareen xilli ay casar gaaba tahay oo ay cadceedu baadka sii dhiganeysay xilligaas oo xooluhu ay ku soo noqdaan xiriyahooda iyadoo ay tahay xilligana mid barwaaqo ah waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisu marka ay soo mareen santarka Guuyow ay la kulmeen qoys aroos ah halkaas oo ay ku leexdeen ama ay ku hakadeen waxaana u dhacday sida tan waxaana shir la mid ah shirkii qaybaha bulshada lagula yeeshay magaalada Dhagaxbuur ayaa wuxuu madaxweynuhu la yeeshay shirkaas la mid ah bulshada ku dhaqan degmada Qabri Bayax waxaana madaxweynuhu kala hadlay horumarka iyo maamulka suuban iyo doorka looga fadhiyo qaybaha bulshada in ay qaataan waxaana socdaalka loogu magac daray biyo iyo nabad oo madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ku soo mareen gobolada Jarar iyo gobolka Faafan ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay degmada Qabri Bayax ee ka tirsan gobolka Faafan kadib wafdigu waxa uu soo dhaqaaqay xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga waxaana socdaalkan ku soo dhamaaday jawi wanaagsan iyo waliba nabad ayaa ku soo gabagaboobay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga Ahmed Kaabe telefishinka caalamiga ah Universal caasimada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga safiirka